السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمارك محمد علي مدح برنامج هون كابيتال نتورك. تضوات كورة فيديو بنسوق لي أنو ماركت كا كوجر فيني بيريس كا يو دايركشن كانوا راعينه تضوات كان اللهم صل على محمد. وحويا تضوات كان نوع نيجينا وحي نقب صومي وحيانا نقب صومي بلانك قاب كانوا حقر شاني وحي سيدودي وقب صومي وحيانا نقب صومي. اللهم صل على محمد وإنه أبديت كرين دونا واي يوتيوب كان فيديو بي waxaan soo dhigi doonaa YouTube-ka isagoo free ah signalska short term ka ah qolada paid members ka ayaa kaliya ayaa arki doona. اللهم صل على محمد. عندي doonaysa pairs gaar ah danaysa oo position ka ku jirta si free ah lacag hoose comment ka video-ga ay ku soo qori doonaan just marka intanu analyze garayno halkaas ay kala socon doonaan. way haddii aan ku bilaabo Credit Suisse franc waan doonayna inuu kor yara baxo uu qorsheeyno ahaa waxaynu haynaa in trendka nearly kor uu jiray trendka kor uu price ku dhaafay halka ku yara wareego kor uu yara dhaafay waayahay laakiin mushkilad baa jirta oo ah in waxa jira volume baa jira u diyaara price kana hoos soo yar riixan waaqaca imika jira blankini wiga hore waxaa internalka kor loo jiro loo jiray laakiin price-ku intaas markuu halkaa joogay waxaa jira volume doonaya orders fara badan oo short doonayna u galaan way haddii masalan 4 hour-ka oo kale aan eego waxa weeyaan retrace-kii wuu dhacay ciddii gashay markaa nice profit bay heshay blank sidii loogu talagalay buu socday hase ahaatee price-ka markaa intaas u socday retrace-kii wuu dhacay trend line-ka waa la jiray retrace-kiina wuu dhacay isna price kor buu sii socday way waxa kor moo sii socon doonaa bay isweydiintu ay tahay waxaanu filaynaa in volume-ka pairsku uu isdhimi doono kadib marka zoonahan la gaadho zoonahaas oo resistant ah hadduu ka kor marana level kale jiro halisa marka volume-kaas inuu adag yahay zoonahan la dhaafo marka price-ku hadduu sii socdaba inuu akhirka hoos soo noqon doono ma filan marka waxa weeyaan blankena weekend waxa weeyaan inaynu sugno price-ku inuu resistant ka gaadho oo ay muuqato inuu resistant ka dhaafi kari waayo ay muuqato dadna uu correction sameeyo oo hoos soo baxo dadna markaa ka bacdi wayna tusoo astaan oranaysa buy markaa istiraatiijiyadda ku siiso signal oranaya buy marka blanken waxa weeyaan qoladii halkaa ka gashay retrace-ka markuu sameeyay gashay iyadu good nice profit bay heleen laakiin profit-ka kaasi waana loo sii bedelin waxa weeyaan at least waa inaad partially qayb ahaan profit-ka ka qaadataa price-ku sii socon lahaa hase ahaatee waanaad ka warqabtaa astaamaha cadaymaha uu ku siinayo marketku marka cadaymaha inuu siinayo waxaa ka mid ah in zoonahan lagu dagaalamayo waynu aragnaa oo ay resistant ahay marka waxa weeyaan faa'iidadii qayb ahaan qaado at least break-even samee ama ugu yaraan ama totally ba faa'iidadii qaado oo dadna signal dambe sida up dambe eego ah buy
halka ka sii gashid marka blanken toddobaadkan waxa weeyaan inaynu sugno price inuu resistance area ku dhawaado area inta ku dhawaado dadna uu retrace sameeyo retrace markuu sameeyana hayna tuso xaqaa'iq ku saabsan according to your strategy qof waliba strategidiisa markuu eego xaqaa'iq ku saabsan ay sheegaya buy sheegaya oo hayna tuso waaye marka waxa weeyaan card Swiss franc waa bullish qorsheena waxa weeyaan haddaynu dib u eegno wigii horena wuu shaqeeyey peerkani xoogaa profit baa laga helay dib u gashay blanka sidaynu u qorsheenay allahumma salli ala maxamed waxa weeyaan marka blankeena toddobaadkana waxa weeyaan inaynu sugno price-ku inuu zonaha gaadho resistance tabadna ina tuso inuu dhaafi kari waayey retrace sameeyo tabadna ka baxday waanu halkaa ka galaa dib u galaa marka uu price-ku correction sameeyo oo hoos u soo sameeyo waaya haddii aan ku xejiyo Eurobound مثلا اللهم صل على محمد وهي Eurobound waxaanu aragnaa qorshaheenu wuxuu ahaa in price-ku xoogaa room haysto oo hoos sii socdo in price-ku room haysto oo hoos ugu sii socon karo waaye directionkiina guudna wuxuu ahaa bearish buu ahaa directionkiina guud bearish buu ahaa sidaa awgeed ma jiraan imika oo price-ku hoos u socday ma jirin wax astaana ilaa imika ma jirto wax astaana oo inaga hor imanaysay oo reversal sheegaysay ma jirin oo aynu ka badnaa qorshaheenu wuxuu ahaa markaa masalan haddii aynu nimaadno daily oo kale haddaynu nimaadno qorshaheenu wuxuu ahaa laba qaab oo suurtagal ah u jireen price-ku inuu range-ka uu ku dul meeraalaysto waanagii niri range-ka ku dul meeraalaysto iyo inuu price-ku xoogaa kor u baxo ama spike sicirka halkaa fictaa sare uu gaadhayna hala simo ama hadduu doonaha dhaafo oo zoonayoga stiffka ah ee adag sicirku ha ka soo noqde waxa weeyaan laba siyaabood baa suurtagal ahaa inuu price-ku range-ka uu raaco oo uu ku wareegaalaysto taasoo markaa ay qorshaheenu noqonayo range-ka marka xagga sare la joogo inaynu eegno oo istaraatiijiyadeena ka eegno inayna siiso sit up sheegaya sell aanay ahayn in price-ku ay xoogaa kor yar socdo oo uu dabeedna zoonaha intuu price-ku kor u socdo uu zoonaha dabeedna kasoo noqdo zoonaha inuu ku dhawaado ama kaaba marka sell the rally Soomaaliya marka price kor u baxo dabeedna sell hoos buu soconaya waayo directionka guud waxa weeye waa short imka price-ku wuxuu ku jiraa correction buu ku jiraa waxa weeyaan waxaad moodaa qorshaheenii wiigii hore Eurobound inaanay waxba yaraatee waxba aanay samayn oo uu blanku kii hore un yahay
kii hore uu yahay range-kaas aynu sugno xaggiisa sarena haddaynu aragno in sell ka galno haddaynu sidaa aanu aragno signal sell sheegaya aanay ahayn price-ku uu ka bixi karo range-ka oo waxoogaa spike-an dhaafi karo ama kaa gaari karo oo halkaas sell kasoo geli karo waxa weeyaan anyway euro pound waxba iskama bedelin toddobaadkan qorshaheena waa qorshihii toddobaadkii hore qorshaheena baynu ku soconaynaa waxa weeyaan directionka guud waa short directionka guud waxa weeyaan waa short marka waa in aynu eegnaa markasta oo price-ku uu rally sameeyo deedna aynu short u galnaa مثلا haddii aan eego مثلا 4 hour-ka oo kale waxaynu aragnaa waa range-kaasi guda jira weli price-ku marka value-ka hadduu kor u sii socdo waxa suurtagal ah inuu soo noqdo marka haddii kor uga baxana zoonayaasha adag baa jira spike-ka sare kuwaasaa jira marka kuwaas uu dhaafo way adag tahay anyway haddii si kastaba dhacdo hadduu price-ku uu range-kanku uu xaggiisii sare u joogaaye وميلها كاسي السيجنال أورانيا سيلنا أوكي شورت سيل بيود جلسة لكن ما دام دايركشن كبودو يهاي شورت كو يهاي أنا دايركشن كبودو شورت يهاي بكا يورو باوند قرشين وحوية إنه قرشين وحوية إنه سيجنال برايسكو إنه جارو top of this range range-ka xaggiisa sare inuu gaaro taa uu imika u dhow yahay joogo waxa weeyaan deedna aanu signal raadino oranaya short oo waxa weeye aynu istaraatiijiyadeena dib u eegno waan gartay allahumma salli calaa maxamed haddii aan ku xejiyo allahumma salli calaa maxamed haddii aan eego مثلا awriye US oo kale awriye US maxaynu haynaa awriye US good week waa bullish اللهم صل على محمد week waa bullish kan fiican baa halkaas sawray وإنaan week hore ahayn waaya haddii aynu مثلا daily oo kale nimaadno waxaynu haynaa weekii hore qorshe blanken wuxuu ahaa in trendline baynu sawray daily-ga marka weekii hore qorsheena hadda xasuustaan videoga dib u daawan kartaan Home Capital Network channelkaasaan oo ku upload gareeyay dib u eegi kartaan way soo eegi kartaan blanken weekii hore videogan duubnay Paris-ka iyo iminka wixii qabsoomay way soo eegi kartaan اللهم صل على محمد weekii hore blanken wuxuu ahaa in trendline-ka kor loo jebiyo ayuu qorsheenu ahaa waxaa dhacday trendline-kii price-ku halkaas ku raftay intaas ku raftay range-kaasuu sameeyey price-ku markaas wuxuu sameeyey guud ahaan isagoo bullish ah aan doonaynay trendline-ka inuu kor u jebiyo ayuu halka range yar sameeyey weekii horena waynu tilmaanay range-ka yar buu sameeyey marka qorsheenu wuxuu ahaa range-ka inuu sare uga baxo oo dabna halkaa kasii socdo fikradeena guud waxay ahayd oo keliya buy inaynu raadino fursad odhanaysa buy oo keliya waa inaan raadin waxa odhanaya sell odhanaya maadaama directionkeenu yahay long uu yahay
وايه اللهم صل على محمد. وحويا إمكا هدينو أبنو مثلا فورورك oo kale waa forowork oo kale wigii hore markaan halkan maraynay markaan bartaa maraynay hadaa xasuusataan ama videogii dib u daawataan oo kale oo halkan lahaa way price-ku yar foolxun yahay oo waxa dhacday trendline-ka ayuu intuu مثلا waxaan masaxayaaba trendline-kii daily-gaani sawiro oo halkan wigii hore lahaa trendline-ka daily-ga ayuu price-kii marna intuu kor u dhaafay buu haddana hoos ku xidhmay waa ka trendline-ka intuu jebiyey buu haddana hoostiisa ku xidhmay uu jebiyey haddana hoos buu ku xidhmay haddana hoos ku xidhmay marka waa halkii aan dib u xasuustaan videogii hore waxaan idinku lahaa price-ku meelaha maraya waxaan idinku lahaa shakhsiyan anigu waxa eeg waa in aynu signal kastoo sell ina odhanayo waa inaynu ignore garaynaa iyadoo hadda channel bearish uu hoos socdo ayaynu wigii hore waxaan tilmaamaynay in haddii meelaha uu inaga siiyo istaraatiijiyadeenu ayna siiso signal odhanaya sell odhanaya waa inaynu ignore garaynaa hase ahaatee aan door bidnaa haddii masalan ay hoos soo degto oo meelaha buy naga siiso balankeenii haddaa xasuusataan wigii hore wuxuu ahaa inaynu wigii hore blanken wuxuu ahaa in aynu masalan trendline-ka intuu price-ku trendline-ka range-ka yar uu sameeyey intuu break garayo inuu halkaa kasii socdo ayuu ahaa blankenii wigii hore tiye waxaad moodaa inay qabsoontay inay qaabkeenu ku talaga qabsoontay masalan range-kii ka bearish channel-kaas oo ahaa trendline-kii daily-gana waa kan price-ku trendline-kii daily-gaa buu jaray dadna retrace buu sameeyey aakhirkii range-ka bearish range retrace-ka markuu sameynayay wuxuu u sameeyey in the form of maxay bearish range bearish sicirku halkaa ku meeraaleysanaya dadna aakhirkii range-kii buu kor u break gareeyey retested kor buu socday marka blankeena wiigana waxa weeyaan keliya inaynu buy u gallo suuqa waa keliya inaynu buy u gallo suuqa waxaa dhici karta short retraces laakiin mar walba oo short retraces u dhaco waa inaad xoog suuqa u gashaa masalan tan oo kale mar walba waa inaad maanka ku haysaa short retraces odhanaya masalan iminka oo kale resistance-ka somaas oo resistance marka hadduu price-ku masalan uu retrace yar sameeyo laakiin direction-ku waa maxay waa kor waa qaybka u fahamsanaataa direction-ku inuu kor yahay marka waxa weeyaan blankeena toddobaadkan ee awliya US waa inaynu sugno mar walba oo price-ku uu retrace sameeyo oo uu hoos u sameeyo dabeedna aynu buy u galnaa intaa عافينا فهمتين اللهم صل على سيدنا محمد وحنكو حجينا يورو أوديا وهي يورو أوديا كنت فوق هاي شورت بحي قابها هو صعت من دوننا يورو أوديا مجينا واحد إنه شيء جديد أنا هلك دافع اللهم صل على محمد وهي يوروديا واحد مدة مثلا
qorsho waxa weeyaan مثلا daily-guna muu dhaafin daily-guna oo ka range yar uu sameeyo xagga hoose joogaa laakiin uu yara jiitay marka anyway blanken waxa weeyaan weekan 4 hour kaalay waxa weeyaan blanken inuu price-ku hoos u socday blanken waxa weeyaan sell markastoo price-ku kor u yara baxaba oo ina siiyo astaan sell orange inuu sell u galo maadaama direction ku short yahay ama qaabka ha u jiitamaba oo muddo sidaa iska idhaahdo de akhirkan saa hoos ii socdo ama kor ha u baxo oo dabeedna halkaa sell ha yidhaahdo labada siyaabood midkoodba waxaad ogsoonaanaysaa blanken waxa weeyaan sell the rallies markastoo price-ku kor u baxo inaynu sell u galno waaya danyarada dejiyo masalan waxaan ku xijinaa euro US oo kale waaya euro US maxaa dhacay waaya euro US maxaa dhacay waxa dhacay adigu muhiimaddu waxay ahayd marka hore long term ku buy buu ahaa aan raadinay laakiin waxaan filaynay haddaad videogii dib u daawataan oo wiigii hore waxaan lahayn daily-gu wuxuu samayn karaa dhowr siyaabood inuu bartaa ka noqdo waynu sheegnay haddaad videogii dib u daawataan weliba dib u daawada oo waxaad dib u egtaa pairka euro US markaan ka hadlayay waynu sheegnay suurtagalnimo ah inuu price-ku halkaa ka noqon karo waxaan kaloo sheegnay inuu lowgii u dambeeyey samayn karo price-ku oo dabeedna saa uu kor u bixi karo maadaama long term direction-ka waxa weeyaan waa long laakiin waxaanu ka shakisanayn inuu low dambe samaysmayo marka waxaanu tilmaannay in price-ku ama uu bartaa ka noqon karo ama uu samayn karo lowgii u dambeeyey waxaynu tilmaannay price-ku haddii uu bartaa ka noqonayo oo ay run tahay oo buyers-ku ay kaga dhameynayaan inaynu ku garan karro intaaba waynu tilmaannay inaynu ku garan karro 4 hour-ka oo aynu aragno qaabkaas hay kasii sareeya waynu tilmaannay tii way dhacday waxaad moodaa buyers-kii inay kaga dhabeeyeen baad moodaa waayo price-ku meelahan joogay wiigii hore marka way dhacday in hay ka sarreeya ay sameeyeen iyo lowgii hore ka sarreeya way dhacday marka waxaan iminka sugnaa waxa weeyaan euro US waxa weeyaan inaynu sugno retrace price-ku inuu retrace sameeyo deedna aynu halkaa buy ka galno deedna buy ka galno retrace sameeyo deedna buy ka galno even xitaa haddaad videogii wiigii hore dib u daawato waxaan tilmaamaynay price-ku inuu sameeyey channelka masalan channelkaas oo kale inuu sameeyey price-ku deedna uu price-ku channelka raacayo inuu channelka raacayo channelka laftigiisa inuu sawray iyadoon price-ku halkaaba joogo waay marka waxa weeyaan maadaama euro US waxaanu eegaynay ama low cusub inuu daily-gu sameeyo haddii aanu taa samayn oo buyers-ku ay war fiican helaan oo dadna ay ku dhiiradaan inay suuqa soo galaan oo bushkareeyaan
macnaheedu waxa weeyaan short termka waxaynu ku arkaynaa astaan muujinaysa in directionka by up direction up ah la qaatay oo la sameeyay high ka sareeya muhiimadu sida marka blankeena weegana waxa weeyaan short term retrace yar ayuu galaysa laakiin muhiimadu waxa weeyaan retrace yar hadduu sameeyo blankeena waxa weeyaan in kor loo galo marka directionka euro US iminka u galaynaa toddobaadkan waxa weeyaan inaynu sugno retrace inuu dhaco retraceka short term ahaan sell waynu odhan karnaa laakiin ciddii kale doonaysa directionka inay la raacdo waxa weeyaan retraceka sugaysaa inuu qabsoomo dabeedna kabacdi markaasaad long u gelaysaa واي اللهم صل على محمد هذه المعنى مثلا لابنا يورو نيوزيلاند وكله المعنى يورو نيوزيلاند waxaana tilmaamay wigi hore waxa weeyaan periska ugu fiican buu ka mid ahaa periska ugu fiican weye oo dee tilmaamaya in kor loo raacayo marka blanken waxa weeyaan short term ahaan sell deedna priceku retrace markuu sameeyo inuu kor u soconayo marka weli pricekii weli pricekii retracekii muu samayn laakiin waxaynu aragnaa inuu priceku joogo resistanka inuu joogo waxay u eg tahay inuu deedna short term qolada short termka iyo sell bay u geli karaan selkaas wuxuu iyaga faa'iideysanaya retraceka uu priceku samaynayo dabeedna kor buu priceku directionkiisu waa kor marka euro New Zealand for the short term waxaad maanka ku haynaysaa areada zonekaas inuu zone caqabad keenaya uu yahay oo priceku ku hakanayo waxa weeyaan اللهم صل على محمد دواء ركتان وكان وصونها أول تلمان تدوات كرو فيديو قد ركتان إذا لفت في سوى النري لياب ملها والكن العين لياب ملها إن وهي زونها نهارو تلمان إنه أرقني زونها زي نهارو أرقني كالي زونها إيش هذه زونها زين هرو أرقني وحويان زونها وكان لهين برايس قدو كسون والله يامنا واحد مودابا مركز زونها مريء إن برايسكو ريتريس كي سمية أوصل تنكر بورس سعد لكا حصل تقلا هذا أجل حتى كروسي سعد آخر كا ريتريس وين سمية لأنك بعد مركزات باي markay istiraatiijiyada ku siiso buy korgelisa iminka soonada maraya marlayba resistance area markuu gaaray priceku way ka muuqatay inuu ka hoos soo jabay ilkadeedu ha socdo laakiin waxa laga yaabaa inay sii wadi kari waayaan qolada priceku sababtoo ah qofkii early galay goor hore galay profitkiisii uu qaadanaya dad badan baa profitku qaadanaya markaa anyway euro New Zealand qorshaheena toddobaadkan waxa weeye inuu retrace sugno priceku inuu correction hoos sameeyo oo uu short u sameeyo deedna kabacdi aynu buy u galo buy ma garoomeynu gelinaa waxaanu gelinaa marka qof walba ay istiraatiijiyadiisu ay siiso signal odhanaya buy way
maxaa lagu xiga اللهم صل على محمد maxaa lagu xiga New Zealand card samaha New Zealand card waxa weeyaan price-ku zonaha isu dhaafi waaye oo hoos weeye inuu soo socdo oo weliba xaggana uu hoos jibiyo waaye اللهم صل على محمد laakiin waxaa dhacaysa correction yar baa iminka socda oo dadna laga yaabo price-ka hoos u sii socon karo New Zealand card direction ahaan waa short directionka guud waa short laakiin iminka masalan idinkaadi farqoodan maado iminka waxaa socota correction kaasa socda oo laga yaabo inuu ama korba yara baxo oo zonahaas uu taskareeyo laga yaabo inuu kor baxo oo dana halka sell aan ku galo agamare haddii kalena waxaa laga yaabaa inuu price-ku qaabkaas oo kale oo meelaha ku yar rafto dabadna sax ama sida aan u sawiro masalan qaabkaas oo kale dadna uu hoos socdo anyway waxa weeyaan New Zealand card waxa weeyaan price-ku markasta uu rally sameeyo oo xagga sare isku dayo inuu yara kaco waxaad eegaysaa signal ama xaqaa'iq ku muujinaya inaad short u gasho marka blankeena weegan waxa weeyaan New Zealand card waa inaynu short u galaa inuu short u galo way اللهم صل على محمد haddaynu nimaadno euro Swiss franc oo kale haddaynu nimaadno euro Swiss franc eegadi euro Swiss franc totally waa beerka keliya ee qaabkaynu u analyze garanay wax lama filaan ay soo baxeen oo aan qorsho sideenii u qabsoonin sideen ugu talgalay u qabsoonin waxaan filaynay in price-ka xoogaa room yar u haysto ilaa dadna lama filaan la soo baxay anyway waxaa timaadaa masalan daily oo kale hadaynu eegno waxaa dhacday price-ku inuu soone maxaan ku rahdaay soone wuxuu gaadhay soone ilaa xad price-ku ilaa xad ah dadna value fara badan baa jiray markuun buu kor usoo booday inagoo filayna markaa price-ku hoos oo yar soconayo waxa weeyaan marka price-ku si direct buu kasoo booday halkan waaya maxaa dhacay iminka qorsheenu muxuu noqonayaa markaa wuxuu noqonayaa inaynu sugno retrace oo dadna price kor uu baxo ilaa xadkee waxaan haynaa laba zone oo ah zonka inaan price-ku uu resistant yahay ilaa zonaha uu ka gaadhayo hadduu dhaafana waxaan haynaa levelka labaad price-ku markaa haddii kor ilaa halkaa socday waa inuu sugnaa mar walba uu retrace sameeyo dadna kor aanu raacnaa haddii masalan forward kala imaado price-ku si toos ah ayuu toos ku socday
waxaa laga yaabaa iminka inuu sidaa yidhaahdo oo deedna retrace sameeyo. Retrace buu sameynayaa deedna markaa ka bacdi baynu halkaa buy baynu ka gelin inagoo stoploss-kana dhiganayna lowga u dambeeya buy baynu ka gelin. waaya waxaa muhiim ah inaad updateska inaad la socoto waayo periodska sidaynu u qorshayno waxaa ka weyn marketka weeye ka waxaynu sheegaya si kastaaba wax kastaaba waa dhacan marketkan marka mar saad wax u qorshaysay bay wax u dhacayaan mar waxyaaba loo filan baa dhacaya. Anyway waa inaynu periodska update garayno oo aynu hadba waxa weeyaan wixii suuqa ku soo kordha waxa weeyaan aad ku go'aan qaadato oo aad talada ku darsato. waaya euro Swiss franc haddaan halkaa ku dhaafo awriya New Zealand مثلا waaya awriya New Zealand oo kale haddaan imaado kaadi periodska fiican bay ka mid tahay waxa weeyaan rangekaas muddada fog xaggiisii hoose la jooga marka priceku waxa weeyaan xagga hoose rangekaas u jooga directionkeena wuxuu ahaa inaynu buy xagga sare buy buu ahaa oo xag bottomkii rangeka baynu joognaa rangeka xaggiisii hoose aynu joognaa. Anyway waxaynu kaloo haynay si qurux badan trendlinekaas oo si qurux badan loo jibiyey trendlinekaas oo priceku si qurux badan u jibiyey baynu haynaa. laakiin waxa weeyaan waxaa laga yaabaa in short termka long termka weeye taasi short termka waxaa laga yaabaa in qolo ay sell u gasho waayo retracekaasaa bannaan waxaa kale oo jira priceku resistantkaas ayuu iminka joogaa resistantkaasuu joogaa oo ay mar labaad ku qaadanayso inuu hakad galo oo dabeedna hoos intuu hakad galo dabeedna halkaa kor uga istaanaya marka for the long term muddada fog haddaad eegto waxa weeyaan priceku waa kor laakiin short term haddaad eegto sell baad moodaa waxa weeyaan in halkaas short term ahaan waayo midda kale waxaa jirta volume fara badan oo waxa weeyaan odiya priceka ku khasbi kara inuu hoos soo noqdo ayaa jira. waxa weeyaan short termka awriya New Zealand waa sell long termkana waa buy marka labada qaabba haddaad isku wadi karto maanka waxaad ku haynaysaa for the short term retraceka inaad ka faa'iidaysan karto laakiin waa inaad fahamsanaataa guud ahaan directionku inuu long yahay marka haddaad sugi karsidna retracekaasi intuu qabsoomayo sug haddii kalena waxa weeyaan labadasiba aad isku wadi kartana waxaad ogsoonaataa for the short term profit yar waxa weeyaan waa inaad ogsoonaataa dee inay tahay short term inay tahay waa inaad ogsoonaataa dadna xoogaa profit markaad qaadato dadna priceku isbedelo direction kale isbedelo aadna aad long gashaa اللهم صل على محمد faralku kala eegto faralku kala eegno oo price muddo badan buu kor u socday korod xitaa u sii socdo markuu soo duumo baynu arkaynaa deedna buy اللهم صل على محمد maxaa lagu xigaa awriya Swiss franc oo kale waayahay
وري سويس فرانك وحويان بولش بوها وري سويس فرانك وحان هيدا إنه بولش وقلب وقرشين وحوها وجهر إنه بولش وقلب أو كارو برايس وصعدة اللهم صل على محمد حويان لكن ما حاقب صمي عندنا حبيت بدل الفكرة لها شوف إيكادي هذا فرق وكلمات ها waxaan xasuustaa videoga hore aad dul daawateen waxa uu price memory inuu kor u socday halkaa waxaan soo waray مثلا channel baan soo waray barta waxaan soo waray igaadi waxaan soo waray price memory malahan waxaan xasuustaa inuu qaabkaas soo waray qaabkaas oo kale baan soo waray waxaan channelka soo raacaya price anyway exactly point kan ma taaban laakiin yeelko waxaan soo waray laba line oo tabtaas oo kala ah waxaan waray price ku tabtaas kor oo raacaya dad videoga hore daawata marka waxaan sugaynay mar walba retrace sameeyo oo channelka xagiisa hoose retrace ku sameeyo already maalinta wigii hore qofkii analysiskan la socday in ka badan 100 pip ayuu ka helay halkaa waan la socday tradekan Swiss franc more than 100 pips ayaynu ka helay marka waxa weeyaan trade fiican bay ahayd anyway direction kuna waa up marka Euro Swiss franc sidii aynu doonaynay bay u qabsoontay wigii hore qaabkaynu u qorsheynay bay u qabsoontay profit fiicanna wayna siisay اللهم صل على محمد waxa weeyaan iminkana qorsheyn waxa weeyaan markasta wiigana qorsheyn waxa weeyaan iminka haddii hoos kor u sii socoto waxaan aragnaa inay zoonahaas u resistant yahay marka markastoo retrace samayso inuu buy u galo way qorsheyn toddobaadkan waa buy inuu galo isug kan adugu trend kasoo yaryahay laakiin yeelkii adigu directionka price qaabka uu socdo oo markastuu retrace noo sameeyo inuu kor u galo muhiimad trend line khaldan inaan sawiro ilaa mis khaldan laakiin maxruka muhiimad waxa weeyaan price-ku qaabka uu soo sawiray si fiican buu socdaa laakiin maadaama resistance-kaasina jiro price-ku inuu ka fiicnaa inuu retrace sameeyo xoogaa hadduu sii socdo xitaa ama halkiisaaba retrace inuu sameeyo dabeedna ka bacdi oo zoonayaashan resistance-ka noqday midkood uu test gareeyo dabeedna uu halkaa kasii socdo uu buy marka for the long term direction-keena Euro Swiss franc waxa weeyaan ama plan-keena Euro Swiss franc waxa weeyaan retraceska inaynu sugno dabeedna aynu buy u galo waaye اللهم صل على محمد هدان مثلا
bone card kokale signal baan soo dhignay short ah oo moodayno profit fiican in siiyay really profit fiican in siiyay muqalbin way ka badan tahay kaadi waxaanu wigi hore aanu sheegnay inuu price ku joogo zoonaha support ah inuu joogo double bottom buu sameeyey halkaas in joogo wigi hore halkaas in joognay waxaan sugaynay price ku inuu ama half ka gaadho ama range ka xaggiisa sare marka 4 hour range sameeyay range kaas in ka faa'iideysan waayahay haddii مثلا aan maado 1 hour ko kale 1 hour ka sidan waxa price halkaas mariyay marka waxa weeyaan مثلا isu 4 hour ko kale dad ku celiyo trend line ka sawiro price ka halkaas inuu ka galay hortaas in sheegin waxa lahayn trend line ka kor jibiyaan gal marka trend line halka qofkii ka galay already nice profit buu qaatay waayo signalku waxa shorting ahaan buu ahaa waayahay اللهم صل على محمد هذا ممكن مثلا صار كانتو 15 minutes كوكله سيجنال كوكله 15 minutes كانتو وحويا ما يمكن يقال وحويا 15 minutes كوكله ضد كانتو دوكا و ترنكا مدة الرأي انتهى ترنكا already بقول بيبقى كمان تاي ترنكا كان for the short term ها وحويان ترنكا سيسوي way and اللهم صل على محمد محايا الحبة يمكن waxaan filaynaa value fara badan baa jira oo deelka laftigiisa hadduu xitaa hoos soo yar socdo kor ugu kici karo value fara badan baa jira marka even xitaa hadduu deelku imika hoos soo yar socdo directionku deelku waa kor waayahay اللهم صل على محمد انت هذا كويسيو وحويا تضوات كان عصب ان شاء الله تعالى وحان اسكديا بلانكي قرشي تضوات كواكن يوتيوب كان سوى فري دي صدقيا قولدا ميمبرس كهون كابيتال نتورك ميمبرس كاه حبنا يو paid members ka YouTube signal waxay helayaan iyagu signal u gaar ah oo allahumma salli ala maxamed oo ku salaysan analysis kan week ayaan sameynay waxa weeyaan muhiimadu waxa weeyaan qofku inaad week aad qorshe leedahay aad garanayso payroll iyo direction ka aad raacayso qorshahaagii hadduu marketka ku siiyana okay hadduu ku siin waayana waxa weeyaan iska gelmaysid indhalaan suuqa iska gelmaysid shalmaarka ahaan shakhsiyan waxaan isku dayaa in dhalinyaradu ay weliba in pure price action intan u analyze garayno ay xoogga saaraan sidii ay u fahmi lahaayeen dana plan u yeelan lahaayeen iyadoo aynaan just intaynu fikri soo qarayno signal indhala'aana
signal indhalaan oo iska dabagalo keliya indhalaan ku dabagal ah aynaan usoo dhigayn laakiin muhiimaddu ay tahay in qofku reasonkana uu fahmo long buu gelayaa why buu long ugu gelayaa oo priceka reasonkii waa inuu kula fahmaa oo uu sababeeyaa at least 3 reason 1 reason 2 waa in confirmations ay jiraan oo markaad long u gelayso waa inaad sababta long ugu gelaysay aad garan karaysaa laakiin ma qurux badna adigoo aan signalka approachkii lagu eegay lagu analyze gariyay adigoon fahmin inaad indhalaan signal ku daba gasho ma qurux badna dhammaan dhalinyarada Soomaalida Avexka dhawaan wax ka ogaaday waxaan ku buurin lahaa inay xooga saaraan sidii ay suuqan u baran lahaayeen si xaqi u baran lahaayeen iyagoo aan tool indhalaan iska dabagelin ama signal xooga aan saarayn signal dhalinyarada bilowga badankooda waxaa ka maqlayaa signal waxay raadinayaan uu signals yahay marka muhiimadda waxay isku daydaa waxa weeyaan haddii aad rabto inaad real trader dhab ah noqoto forex-ka muddo iminka 10 sano ku waxa weeyaan 2011 waan bilaabay 2011 adigu ilaa 10,000 dollar haddana ku dhaafeen way gaaraysaa lacagta iga luntay aan ku khasaaray waxa weeyaan laakiin waxaan aakhirkii hal qodob baa ka xaasil ahaa oo aan go'aan aan qaatay ahaa in maadaama waxaas oo dhan ay soo mareen inaan joogo meelaan kaga hadhaynaan jirin marka muhiimaddu waxa weeyaan haddaad rabto real trader inaad noqoto waa in aan ku warwareegin signal inaad indhalaan ku daba gasho laakiin isku daydo inaad priceka adigu analyze garayn karto fahamto approachka even xitaa cidan coachka aad daba gelayso approachka ay suuqa ku eegtay iyo waxa ay ku sabaysay waa inaad at least fahamsan tahay intaasna iga baraarujin waa Shamarka Maxamed Cali madaxa barnaamijka Home Capital Network والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته